waxaan meeshan ugu qaybinaynaa dad barakacayaal ah deeq naga soo gaartay Hormuud Foundation baaqyadanadii ay uga soo jawaabeen deeqdaas oo dhan 300 oo qoys waxaan leenahay marka arintan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka samafalayaasha ah meel walba ay joogaan jaaliyadaha shirkadaha ilaahay deeqa uu siiyay iyo kambaniyada inay soo gaaraan dadka tabaalaysan oo walaalahood ah dadka waxay ka soo kala barakaceen qaybo fara badan oo isugu jira oo dhanka gobolka Gedo xuduudda la Kenya sidii Faafaxdhuun Buusaar Gariley iyo maxaan ku raadayay Siidimo ceel cad ceel gaduud ilaa dhammaan dhulkaas ay ka yimaadeen dadkan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Hormuud Foundation inay noqoto baaqi maalin dhaweyd aan halka ka jeedinay maamulka gobolka iyo degmada dadkii barakacayaasha ahaa oo aan ugu baaqnay dawlad goboleedka Jubbaland iyo federaalka iyo caalamka iyo cid kasta oo samaha iyo wanaaga jecel in ay la soo gaaraan dadkan dhabaataysan kaalmo in jawaabtii ugu horeysay ay ka bixiyeen Hormuud Foundation aad iyo aad baan arinta ayada ugu amaanaynaa waxaan idin leenahay barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayr waxaan idin leenahay bacdama codkanaga aad qiimeyseen dadka shacabka halka ku tabaalaysan oo ku barakacay bacdama shacabkii gargaar degdeg aad la soo gaarteen waxaan idin leenahay guulaysta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo mahadcelin ballaaran aan u soo jeedinayaa shirkadda Hormuud oo ka soo jawaabtay baaqii ay joodiyeen deegaankan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheere markii ay ku habsadeen abaaraha ba'an oo xilli adag ay dadkii galeen siday ula soo walaageen gurmadka degdega ah oo dadkii walaalaha ay ugu soo gurmadeen aad iyo aad baan arintaas ugu mahadcelinaynaa Hormuud waa shirkad dad walaalaha isu tago islaam ay leeyihiin aad bayna dadka Soomaaliyeed ee ummadaha dhan ugu gurmataa aad iyo aad baan marka hore ugu mahadcelinaynaa waxaan ka xunnahay oo aad iyo aad aan uga xunnahay wax badan aan hore uga hadalnay haddana aan rabaa mar kale inaan baaqan hadda kulanka uga faa'iideysto marka maalmahan dambe marka waxa timid in si ula kaca dad macnaha ka soo jeedo Kenya iyo dad kale oo macnaha la diidan horumarka gobolka iyo deegaanka inay si baan oo la diriraan maaragtay horumarka shirkadda ayadaasna waxaan leeyahay baaq dheer baan rabaa inaan uga faa'iideysto arintaasu arrin aan aqbali doono ma ahan waa arrin aan maaragtay deegaan ahaan iyo dad ahaan aan ka hortagi doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida gurmadka aad noogu soo samayseen uga soo jawaabteen baaqi dheeraa oo anagu aan joodinay oo sida qiimaha badan oo sharafta badan oo dadnimada leh oo wanaagsan uga soo jawaabtay baaqi maamul heer gobol iyo heer degmo iyo baaqi bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku soo barakacday abaaraha ay soo barakiciyeen calaalkii iyo baaqi ay joodiyeen ee addiimka islaamka iyo ummadda Ilaahay bay u joodiyeen jawaabta degdeg ah oo ay ka soo bixisay Hormuud aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mid majaasaan u celinaynaa Ilaahay baa ha ka abaal siiyo meeshay ka soo bixiyeen wax baraka leh oo fara badan oo wanaagsan Allah u bedelo khayr qab Allah ugu bedelo waxa kale oo sida nabadoonka ugu horeeyay rag ugu horeeyay bay uga hadleen aan aad iyo aad uga faa'iideysanaynaa kulankan dhibaatada loo geysanayo biraha Hormuud iyo caqabada loo geysanayo haddii halkee oo garanaysa waxaynahay dawladda Kenya ay sal ku leedahay arintaas ayadana waxaan rabnaa inaan cambaarayno dadka arrimahaas u geysanaya dawladda Kenya intaba dhibaatada ay u geysanaysa Hormuud waxaan leenahay marka Hormuud ay soo dhawow aad baad u mahadsantihiin Ilaahay baa mahadsan aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa meel walba isaga yimid barakacayaal ah kuwa Kenya ka soo qaxay kuwa abaarihi ay ka soo qaxay kuwa xooluhu ka dhamaadeen kuwa beerihi ka baabeen waxay isugu jiraan dad badan oo aad anaha qabada badan ay u qabsadeen marka jawaabtii aad ka soo jawaabteen maanta dadkiina u daqateen waxaan idin leenahay jazakallahu khayr Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajir iyo xasanaad idin ka siiyo adinkoon ognahay Hormuud inaad waxyaalo badan idin soo gaareen oo nimankii cadawga ay burburiyeen
ateenooyin badan oo kuwiina ah iyo muxuu ahayd maal badan oo kiina ah oo qasaarada dhinaca ka jirtaan haddana saad uga dhaqantay dadkiina iyo dalkiina saad uga dhaqantay wax la soo koobi karaa waa waxaadna ammaan ku mudan tihiin waana waxaan idinka sugaynay run ahaantii qalbiga annaga wax badan waa idinku haynay meelo badan oo wax ka bixisay annagu waa ognahay goorma hormuud idin soo gaari doontaan aan lahayn laakiin nasiib wanaag maanta way nala joogtaa way noo timid